ahaa dardargelinta iyo wacyigelin ku saabsan tirinta iyo tayeynta shaqaalaha dawladda gobolka Togdheer ayaa waxa soo qaban qaabisay hay'adda shaqaalaha dawladda oo dardargelinta shaqaalaha iyo shaqada dawladda u timi magaalada Burco waxaana kulankani goobjoog ka ahaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaake Geele maamulka gobolka Togdheer iyo guud ahaanba madaxda laamaha dawladda gobolka ugu horeynba waxa kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaake Geele wuxuuna faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulankani aynu kaga tashan doonaa arrimo muhiim ah shaqada iyo shaqaalaha dawladda iyo kobcinta iyo horumarintooda sidaad la socotaan dhawaan waxaynu bilaabi doonaa mashruuc ballaaran oo ah tirinta iyo tayeynta shaqaalaha dawladda waxaynu u tirinaynaa ama aynu xogtooda u baadi doonaynaa si wax looga qabto waa laga yaabaa inaynu in badan ama marar badan aynu maqli jirnay inagoo madax taabasho samaynayna laakiin laba shay oo muhiim ah oo ay ka maqnaabaynu doonaa doorkeena inaynu kobcino shayga koobaad waxa weeye dadkan aynu tirinayna inaynu ku tirino in indhahooga ama farahooga midkood la qaado si ay u noqoto xog rasmiya oo aynu isticmaalno qalabyadii kala duwanaa loo isticmaali jiray marka doorashooyinka oo kala diiwaangelinta la samaynayo si ay uga ilaaliso in laba jeer qofku meel jeer ka soo gali karo iyo in xogtu noqon karto mid tobanaanka sano ee soo socota la isticmaali karo shaqaalaha inaynu tirinayna ama aynu dabagalaynaa waxa ugu muhiimsan maaha inaynu caagla raadinayno iyo qof laba meelood ka mishaar qaato kaliya waxay naga maqan dhammaan xogtii shaqaalaha dawladda ee waxtarka leenugu qaban kari lahaa oo rasmiya meel walbo imika codsi aynu geynaa ama aynu nodhan shaqaalaha ka kaba waxa ugu horreeya su-aalo wuxuu noqdaa xog rasmiyood marka samaysayn ma jiraan imsaa dumara imsaa raga oo rasmiya aqoontoodu halkay taagan tahay aan kasii kobcin karnaa mishaarkoodu waa imsa maxay u baahan yihiin inuu shaqaaluhu see u horumar oo dhan arrimahaasoo dhan baa dhowaan waxay bilaabmi doonaan iyagoo ilaa 16 su'aalood shaqaalaha dawladda lagu ogaanayo 16 su'aalood waxa ka samaysmi doona waxa laaliyo waxa kubcinayo taran shaqaalaha dawladda u baahan yihiin barasabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salaamaan Ramac oo dhankiisa kulankaasi ka hadlay ayaa hay'adda shaqaalaha dawladda ku amaanay doorka ay kaga jirto sidii ay u tayeyn lahayd guud ahaanba shaqaalaha dawladda waxay noo bilaabmay kulan aad iyo aad muhiim inoogu ah gobol ahaan iyo dal ahaanba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hay'adda shaqaalaha oo intan dambe aad iyo aad ugu howlanayd bal sidii goboladana la isu soo gaarsiin lahaa shaqaalaha dawladuna uu u noqon lahaa mid xuquuqdii uu lahaa uu helo hadday tahay qofku dee markuu gaadho waa ogtiino in dee booskiisii la bedelaabaa muhima si adeegii dadka loo qabanayay dee uu halkii uga sii socdo ugu dambeyntii mas'uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa muddooyinkii u dambeysayba kulamo noocan oo kale ah la qaadanaya mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee gobolada dalka waxaana kulamadaasi ahaayeen kuwo daaran dardargelinta iyo wacyigelin ku saabsan tirinta iyo tayeynta shaqaalaha dawladda waa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Soomaaliland